and without dedication you are living in dark. waa wax mar walba taagan oo waa fact. Habitska markaynu nidhaahno waa wax micnaha caado inoo ah oo inagu soo noqnoqda mar walbana aynu qabanno. مثلا aan idhaahdo routine wax ah waxaa ka mid ah مثلا maalin walba iskuulka tagtaa. Then I go to school every day. I brush my teeth every day. I eat my lunch every day. I pray 5 times a day every day. I sleep every night. I study my lessons every day. I play games every day. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa routines. Sidaa awgeed marka aynu ka hadlayno simple present tense ama everyday tense waxa la yidhaahdo waxaynu isticmaalnaa waxa la yidhaahdo adverbs of frequency. Adverbs of frequency-gu waxa weeyaan kuwa inoo sheega wax soo noqnoqda ama something which happens every time. waxa dhaca mar walba. tusaale ahaan waxaynu ka soo qaadanaynaa Aasha often uses a dictionary. gabadha la yidhaaha Aasha badanaaba waxay isticmaashaa dictionary whenever she is writing a letter. mar alla markay warqad qorayso she uses a dictionary. marka aan idhaahno Aasha uses kelmadda ficilka ah ee isticmaalka ahi waxa weeyaan waa everyday. marka haddaynu idhaahno Aasha uses dictionary waxay noqonaysaa marka ay qorayso warqadba waxay isticmaashaa dictionary-ga. aan idhaahdo Ali never uses one. Ali never uses one. Or you can say Ali never uses a dictionary. Ali ma isticmaalo isagu dictionary ma isticmaalo. marka waxa ay ku kala duwan yihiin Ali iyo Aasha waxa weeye Aasha uses a dictionary but laakiin Ali never uses a dictionary. marka kelmadda never ayaa waxay noqonaysaa micnaha adverb of frequency oo ah weligiiba marnaba ma isticmaalo. laakiin tani waxa weeyaan waa positive. tanna waxa weeyaan waa negative oo waxay inoo muujinaysaa kelmadda never ayaa waxay noqonaysaa adverb of frequency-gii uusan weligiiba isticmaalin. mar walba markuu wax qorayo isagu marnaba ma isticmaalo. kelmadaha marka aynu nidhaahno kelmadaha soo noqnoqda ama kelmadaha la yidhaaho adverb of frequency-gu waxa weeye always had iyo jeer waynu isticmaalnaa. markaynu everyday tense aynu ka hadlayno waxaan leenahay she always goes to school. Okay, she always learns her lessons. She always sleeps early. She always beautifies herself when she is going to the town. She always takes a ride to school. marka kelmadda always waa had iyo jeer waana adverb of frequency-ga aynu ka hadalnay. maxaa ka mid ah usually micnaha sida badan ama sida caadada ah. waxaa ka mid ah habitually kelmadda habitually iyana waa sida caadada ah. waxaa ka mid ah often badanaaba waxa sometimes marmarka qaarkood. waxaa ka mid ah seldom waa dhif iyo naadir. waxaa ka mid ah rarely micnaha waxa weeyaan waa si yar ama hardly ever ay yidhaahdaan micnaha si qaalib ah ama si aad iyo aad u yar. intaaba marka waxaa la yidhaahdaa
ama waxaynu odhan karnaa kelmadatan never oo marnaba oo midda ugu dambaysa oo qofku uusan marnaba isticmaali karin waxa aynu ka hadlayno ama falka soo noqnoqda. Okay, maanta marka waxaynu ka hadlaynaa waa maxay micnaha hadafkeenu muxuu yahay ama goalskeenu muxuu yahay ama objectivekeenu muxuu yahay. waxaa la yidhaahdaa objectives waxaa la yidhahdaa af Soomaaliga hadaf ma garanaysaa ama ujeedo waxaynu ugu yeedhno. waxaynu kaloo odhan karnaa maxaan ku rahday target waa bartilmaameed. marka ujeedadeenna ama aynu nidhaahno dadka qaar waxay isticmaalaan goolka iyo hadafku markaa way isku mid ama objectiveka iyo ujeedadu way isku mid. targetkuna waa bartilmaameedka aynu beegsanayno oo aynu doonayno inaynu ma garanaysaa aynu ku gaadhno waxa aynu rabno inaynu qabanno. marka unit objectiveskeenu waxa weeye maanta inaynu baranno marka aynu isticmaalayno simple present tense markaynu isticmaalayno ama waxa joogtada goormaynu isticmaalayna. when do we use simple present tense? maanta waynu ku baranaynaa casharadeedan inoogu xigana waynu sii wadaynaa. waxaynu kaloo baranaynaa how to form simple present tense correctly. sidee baynu micnaha simple present tense ama micnaha word joogta aynu u isticmaalaynaa maalin walba, sidee baynu u isticmaalaynaa. waxaynu kaloo ku baranaynaa to understand the meaning of the various adverbs of frequency. micnaha waxaynu kaloo baranaynaa inaynu fahanno micnaha ay falkaabyada kala duduwani ee soo noqnoqda ay leeyihiin oo ay ku leeyihiin everyday tense-ka. maalin walba waxa jooga micnaha maxay raadreeb oo ku leeyihiin ama micnaha ay ku leeyihiin muxuu yahay. مثلا waxaynu nidhi falalka of frequency-ga ama adverb micnaha falalka rakaada waxaa la yidhaahdaa dee markii ay wixii aad ku noqnoqoto marka wixii soo noqnoqdaaba waa rakaad. sida aynu nidhaahno marka wave-ka مثلا aynu nidhaahno wave-ku halkaa ka bilowdo oo halkaa tago uu kor tago uu soo noqdo oo halkaa tago soo noqdo waxaynu nidhahnaa waa frequency waxaa loo yidhi micnaha dee wave-kani wuxuu ka bilowday halkan bartii uu ka bilowday buu kusoo noqday halkanuu haddana hoos uga bacay bartii uu ka bilowday buu kusoo noqday haddana bartii buu kusoo noqday haddana wuu tegay halkana kusoo noqday haddana wuu tegay halkan. marka linekaasi waxa weeyaan waa line of our frequency micnaha DC line of our frequency ayuu noqonaya. marka wixii sidaas oo kale usoo noqnoqday waxaa la yidhahdaa waxaynu ku magacownaa waa rakaad wey. marka waxaa ereyadaas oo dhani waxa weeyaan waa adverb of time, at the same time waa adverb of time of frequency. usually, always, habitually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. intaba waxaa la yidhaahdaa adverb of frequency. waa micnaha wax mar walba jooga oo aan inaga tegin. waxaynu kaloo baranaynaa maanta to place adverbs of frequency in correct sentence position. مثلا sidee baynu isticmaalaynaa adverb of frequency-ga. for example adverb of frequency-gu dee had iyo jeer sidaynu hadda aan idinku sheegay waxaad leedahay Ali never uses dictionary. marka kelmadaha kan halkan aynu ku xusnay ee liiska mid walba meesha never geli, then it can be replaced. waxaa lagu bedeli karaa never oo maxaynu odhan karnaa Ali always uses a dictionary. Ali wuxuu isticmaalaa had iyo jeer dictionary. Ali usually uses a dictionary. Ali wuxuu isticmaalaa sida caadadu tahay micnaha ama badanaaba dictionary. Ali habitually uses a dictionary. Ali sida caadada wuxuu isticmaalaa dictionary. Ali often uses dictionary. Ali wuxuu isticmaalaa badanaaba dictionary. Ali sometimes uses a dictionary. Ali marmar buu dictionary-ga isticmaalaa. Ali seldomly uses a dictionary. Ali dhif iyo naadir ama
Ali, Ali rarely uses a dictionary. Ali dhif iyo naadir ama si qaliila ayuu isticmaalaa dictionary-ga. marka dambena waxaynu odhanaynaa ilaynu negative ka dhigno nidhaahno Ali never uses a dictionary. Ali maba isticmaalo dictionary. marka waxaynu garan karnaa iminka intaasoo kelmadood oo halkaa aynu ku xusnay inaynu ku bedeli karno kelmadda never. marka then we know how we are going to use adverb of frequency. As I have given you in the example here, then it's easy to replace each one of these least words with the word never. So it's gonna be very simple to understand how to use adverb of frequency. Okay, and su-aasha ugu horeysa oo aynu isweydiinayna waxa weeye, and for example, how do you learn grammar? Grammarka sidee baynu u baran karnaa? How do we learn grammar? That's a very important question, and we have to answer it accordingly, or for example, we have to answer the way that we can learn English language. Usually marka aynu isticmaalayno English language waxaynu u dadka isticmaala ama baranaya luqadda Englishka grammarkeeda in ay isticmaalaan categories kala duwan ama meeqaano kala duwan oo muxuu ahaayay different ah. marka aynu idhaahno aynu kala qaybino category-ga 1 2 3 4 5. okay, marka qofka micnaha baranaya maxaan ku rahdaa grammarka ama luqadda ingiriisiga waxaa laga rabaa inuu akhriyo statement kasta oo ku saabsan English grammarka inuu isticmaalo ayaa laga rabaa. maxaa ka mid ah aynu isticmaalno kelmadda tan number 1 inay tahay never. marka if you never read English grammar, then you cannot learn English. number 2 aynu isticmaalo and inaynu idhaahno rarely. if you rarely use or study or read or try to put time English grammar, it's very difficult for you to learn English. number 3, if we say number 3 is sometimes. if you sometimes read or learn English grammar, then you learn little, but you don't learn as well as you are supposed to know English language or as you know English grammar. aan ka soo qaadno haddaad badanaba often aad akhrido English grammarka ama aad luqadda akhrido, then you will learn gradually as you read or learn English grammar. and number 5, let us say number 5 is always. if you always read, if you always study, if you always communicate, if you always listen, then that's the most effective category that you can learn English grammar or English language. haddaba waxaynu nidhi haddii aad had iyo jeer akhrido ama aad muxuu ahaayay aad dadka kula hadasho ama aad dhegaysato ama aad qorto English grammarka ama luqadda ingiriisigaba, waxaad awood u helaysaa in aad barato luqadda ingiriisiga. then do it always. That's the most important thing. Do always, read always, listen always, speak English language always, and communicate with the other people that who speak the language. That's the most important part, and you have to put time and effort. haddii kale ma baran karti haddaadan waqti iyo effort aadan gelin. marka aynu idhaahno maxaa aynu samayn karnaa, for example waxaynu maanta ka baran karnaa simple present tense. waxa weeyaan waa habits and routines. habits and routines waa maxay? waa waxa soo noqnoqda iyo waxa caadada inoo ah. oo maxaa ka mid ah aynu nidhaahno aynu isweydiino su'aal. I ask questions. su'aalaan isweydiiyaa when I don't understand. okay, then you say I ask questions. I ask. You do all the time. This is habitual. It is something you do all the time, and it is routine.
So you say I ask questions. سؤالان isweydiiya. I ask questions. سؤالان isweydiiya. goormaad su'aalaha isweydiisaa. When. goortii I don't understand. Okay? I don't understand. So when you ask questions is when you don't understand. But if you understand, you don't ask questions. So this is something which is routine. This is something habit for you. So that's your habit and it's your routine action that you do when you don't understand. Okay, let us come to the next example. And Rahno and Halima uses English as much as possible. Let's say Halima uses English. gabadhan la yidhaha Halima waxay isticmaashaa af Ingiriisiga as much as possible. As much as possible. micnaha sida ugu badan ee suuragalka. As much as waa comparative. micnaha sida ugu badan ee suurtagalka ah ama sida ugu xeelada dheer ee u suuragalka ah ayay micnaha u isticmaashaa Englishka. haddaynu nidhaahno Halima always uses English as much as possible. haddaynu nidhaahno Halima usually uses English as much as possible. haddaynu nidhaahno Halima habitually uses English as much as possible. haddaynu nidhaahna Halima often uses English as much as possible. haddaynu nidhaahno Halima seldomly uses English as much as possible. Halima rarely uses English as much as possible. Or Halima never uses English as much as possible. And or we can say Halima frequently uses English as much as possible. Marka erayadii aynu kusoo aragnay liiskeenii hore oo dhan waynu ku bedeli karnaa inagoo hubinayna inuu sentence-kani yahay everyday tense and it applies inuuna micnaha ku quman yahay ama ku saaloon yahay inuu qaato isticmaalka kelmadihi aynu soo aragnay oo aynu nidhi waa waxa caadada ah ama waa waxa soo noqnoqda. Example-ka saddexaad ama tusaalaha saddexaad wuxuu noqonayaa our class starts at 9. marka classkayagu wuxuu bilowdaa fasalkayagu wuxuu bilowdaa 9 aroornimo am ayuu bilowdaa. Okay, aan iraahno Safia goes to school 5 days a week. gabadha la yidhaahdo Safia aan iraahdo Sofia goes to school. Safia waxay schoolka aadaa 5 times a week. 5 times a week. weekii waxay aadaa 5 jeer bay aadaa. garanaysaa معناها 5 times a week or 5 days a week, whatever you call. halkan haddaad doontid 5 days a week. Ada 5 maalmood and she gets rest for 2 days. So waxaynu garan karnaa markay 5 maalmood aado inaanay 2 maalmood aadin. So she doesn't go to school 2 days a week and she goes to school 5 days a week. 5 way aadaa 2na way nasataayo ma aado. marka waxaynu oran karnaa waxaynu kala qaybin karnaa everyday tense-keena dhowr qaybood ayaynu kala qaybin karnaa. waxaynu isticmaali karnaa statement isagoo ah oo ma garanaysaa aan negative lahayn ayaynu isticmaali karnaa. oo maxaynu oran karnaa statementigeenu inagoo isticmaalayna micnaha subjects-ka oo dhan ama waxa la yiraahdo pronouns-ka oo dhan aynu naqaano waxaynu isticmaalaynaa statement. Then this is our statement. maxaynu markaa isticmaalay I oo aniga ah, you oo adiga ah, we oo inaga ah, they oo iyaga ah oo jamaca ama gabdhay noqon karaan ama rag bay noqon karaan ama gabdhiya rag bay noqon karaan ama rag iyo dumar bay noqon karaan, he oo isaga ah, she oo iyada ah, iyo it oo iyada oo shay ah ama xayawaan ah. Then waxaynu nidhi
study study okay markaaynu isticmaalayno saddexdaa eray markaynu isticmaalayno waxaynu leenahay I study English language maxaan bartaa English language okay waxaan bartaa luqadda ingiriisiga waa ko you study English language adigu waxaad dhigataa luqadda ingiriisiga we study annagu waxaanu baranaa ama dhiganaa English language luqadda ingiriisigaanu baranaa they study iyagu waxay bartaan English language luqadda ingiriisiga saddexdan markaynu nimaadno he iyo she iyo it way ka duwan yihiin inta kale waxaynu odhanaynaa kelmadda study waxaynu ka dhigaynaa studies oo maxaynu odhanaynaa he studies or she studies iyadu waxay barataa English language luqadda ingiriisiga ayay iyadu barataa ama isagu wuxuu bartaa studies baynu leenahay oo wayda waxaynu ku bedelaynaa ies laakiin markaynu isticmaalayno afartan maxaan ku dhahdaa magacu yaal oo ah pronounska aynu isticmaalno 7 pronouns waxaynu odhanaynaa macnaha 7 pronounskeena markaynu afartan isticmaalayno waxaynu odhanaynaa study saddexdan markaynu isticmaalaynana waxaynu odhanaynaa studies okay marka waxaynu garanaynaa inay kala duwan yihiin markaynu isticmaalayno subjectigeena oo ah macnaha subjective pronounska aynu Englishku isticmaalno 7 ah markaynu isticmaalayno ficiladeena sida aynu hadda halkan ku xusnay waxaynu nidhi I study you study we study they study waan bartaa waad barataa waanu baranaa waynu baranaa way bartaan oo iyaga ah saddexdan waxaynu nidhi he studies baynu odhanaynaa wayd waxaynu ku bedelaynaa ies she studies baynu odhanaynaayo dee iyana waa la mid waa isagii oo singular ama iyadii oo singular it studies inkastoo aynu odhan karin xayawaan baa dee wax barta laakiin way baran karaan oo dee waa la train gareeyaa xayawaanka laftigiisa eyda waa la train gareeyaa bisadaha waa la train gareeyaa fardaha waa la train gareeyaa way bartaan wixii ma garanaysaa lagu train gareeyo way bartaan marka aynu nidhaahno English language okay so waxaynu odhanaynaa taasi waa marka aynu isticmaalayno statement of everyday tense markaynu isticmaalayno inagoo apply garanayna ama macnaha ku muxuu ahaa to saameelayna muxuu ahaa subjectigeena ama pronounskeena inagoo ku saameelayna 7 pronoun oo caadiga ah oo ingiriisiga loo isticmaalo waxaynu kaloo isticmaali karnaa iyagoo negative ah oo maxaynu ku daraynaa halka kan waxaynu ku daraynaa negative baynu ka dhigaynaa meesha statementiga waxaynu ka dhigaynaa negative statement taasi wuxuu ahaa positive statement kana waa negative statement okay negative statement marka muxuu noqonayaa I don't study halkaa waxaan odhanayaa do not ama don't okay marka waxaan odhanayaa I don't study English language ma barto anigu luqadda ingiriisiga you don't study English language adigu ma baratid luqadda ingiriisiga we don't study English language annagu ma barano ama inagu ma barano luqadda ingiriisiga they don't study English language iyagu ma bartaan luqadda ingiriisiga afartaasi markaa waxaynu isticmaalaynaa don't baynu isticmaalaynaa waayo waa everyday tense oo marka verb to do iyo verb to have iyo verb to be la isticmaalayo they do differently waxay u isticmaalaan ama loogu apply gareeyaa si kala duwan waxaynu kaloo markaynu saddexdan isticmaalayno singularka kelida waxaynu isticmaalaynaa doesn't instead of don't xagga waxaynu isticmaalaynaa doesn't oo maxaynu odhanaynaa he doesn't study kabacdina waxaynu ku soo celinaynaa kelmadan aynu halka kan ies ta ku bedelay waydeedii baynu ku soo celinaa waayo maxaynu isticmaalay das ayaynu isticmaalay oo intaynu xagga kaga dari lahayn doodii baynu xagga kaga darnay es marka waxaynu nidhi he doesn't study English language she doesn't study English language it doesn't study English language marka doesn't-daasi
negative-ka waxay inoo suurtagelinaysaa main root verbkii in aynu sidiisii kusoo celino liannahu sababtu waxa weeye waxaynu isticmaalnay das waxaynu isticmaalay in front of the root verb ayaynu isticmaalay sidaa awgeed root verbkii sidiisiibu kusoo noqonayaa halka kana waxaynu isticmaalaynaa doesn't with a negative statement sida aynu u isticmaalaynay micnaha positive statementiga dasta tani meesha kuma ool negative kanina meesha kuma ool laakiin tan waxay aynu ku bedelayna wayda ies so markaynu isticmaalayno negative-ka always kelmaddu root-ka ahi ama ma garanaysa aasaaska ficilka ahi waxay kusoo noqonaysaa sideedii doesn't-ina hoos ayaynu horey ayaynu kaga darayna haddii ay positive tahayna dee waxaynu odhan karnaa he does study English language meeshaynu ka odhan lahayn he studies English language waxaynu odhanaynaa he does study English language ayuu bartaa ama she does study English language ama it does study English language okay marka aynu intaa kasoo tagno taas waa maxay waa negative statement iyo positive statement waxaynu kaloo baranaynaa maanta oo aynu ku daraynaa casharkeena waxa la yidhaahdo questions the questionska maxay ahaayeen مثلا waxaynu nidhi I do study or I study English language waa fududahay English language waa wax fudud waxaynu odhanaynaa I study English language halkan waxaa ku jirta oo inoo qarsoon I do study lama muujiyo badanaaba I do study English language and in British system waynu isticmaalnaa do that mostly oo waxaa la yidhaha I do study English language then markaynu su-aal ka dhigayno do-da un baynu hore keennaa oo waxaynu odhanaynaa do I study English language do I study war miyaan bartaa anigu ma English language baan anigu bartaa do I study English language then and that's going to be a question taasi waxay noqonaysaa question bay noqonaysaa oo markaa question mark ayaynu halkaa dhigaynaa مثلا haddaan idhaahdo you do da lama muujiyo laakiin it's hidden halkaasay ku jirtaa waxaynu odhanaynaa you do study English language waxaad barataa adigu English language luqadda ingiriisiga ayaad barataa okay marka waa statement weeye marka waxaynu odhanaynaa you do study English language okay markaan su-aal ka dhigayno dee do-dan baynu hore keenaynaa it's very simple to make a question waxaynu odhanaynaa do you war miyaad barataa do you study miyaad barataa English language luqadda ingiriiska miyaad barataa and then maxaad samaynaysaa at the end of this maxaan ku raha question you put question mark and period okay aan idhaahdo markaad isticmaalaysid waxaynu leenahay we do study English language marka do-daasi haddaynu ka tagno iyo haddii kaleba meeshaasi ku jirtaa it's obvious waa wax iska caana oo la yaqaan marka waxaan leeyahay I do study English language anigu waxaan bartaa luqadda ingiriisiga simple marka iminka waa statement hadda waxay tahay statement markaan su-aal ka dhigayo dee do-da un baan horey keenaya waxaan odhanayaa do we study English language miyaan baranaa inagu sidaasoo kale statementi kasta oo kale na sidaas unbaad u samaynaysaa waa wax isku mid a marka maxaad leedahay do we study English language oo maxaynu odhan karnaa do we travel in the air for example when we are going back home guriga markaynu dee waddankeenu ku soconno ma hawadaynu ku safarnaa oo do we travel on the sea ma cirkaynu baddaynu ku safarnaa do we for example get our maxaan ku rahdaay food from the stores or do we get our food from the farms okay marka aynu isticmaalayno intaas waxa weeyaan waa marka aynu isticmaalayno afarta maxaan ku rahdaay subjecti oo do da isticmaala laakiin markaynu isticmaalayno he iyo she iyo it maxaynu isticmaalaynaa waxaynu leenahay he does study English language
Okay, he does study English language. That is a question. waxaan leeyahay that's a statement. Okay, markaynu doonayno marka inaynu su'aal ka dhigno dee dhasta un baynu horey keenayna maxaan odhanaynaa does he isagu miyuu does he study isagu miyuu bartaa English language? Simple. dhastaa un baad horey keenaysaa halkaasaad ka soo qaadaysaa you bring in front to make it question. So maxaan leenahay does he study English language? miyuu bartaa luqadda Ingiriisiga? Okay, casharkani waa very important and it is how to make questions. So many people actually confuse about making questions, but to make questions is very simple. If you know verb to do, verb to be, and verb to have, and auxiliaries waxa lagu magacaabo ama waxa lagu magacaabo moraliska ama falkaabyada. Marka you bring the does, waxaad keenaysaa kelmadda does un bar hore keenaysaa. Waxaad oranaysaa does she study English language? This is easy. Okay, does he? Okay, and then we say she fiir hadda she sings aan idhaahdo markan aan bedelo ficilka she sings Somali songs. She sings Somali songs. Okay, all right, markaan rabo inaan su'aal ka dhigo waxaan leeyahay halkan de estatan waxay ii muujinaysaa inay everyday tahay oo meeshaan ka odhan lahaa waxaan kala odhan karaa she does sing. She does sing. Inta aan estatan ku dari lahaa dhas baan hore ka raacinayaa esta waa ka tegaya marka waxaan leeyahay she does sing Somali songs. waxay ku heestaa heesaha Soomaaliga ayay ku heestaa. Okay, then markaan su'aal ka dhigaya dhastan baan hore keenaya waxaan odhanayaa does she sing? Does she sing? miyay ku heestaa Somali songs? heesaha Soomaaliga miyay ku heestaa? Or does she sing English songs? heesaha Ingiriisiga miyay ku heestaa? Or does she sing maxaan ku rahaa French songs? Okay, let us say the idna sidoo kale waxa weeyaan aan idhaahdo it drinks water. It drinks water from the well. It drinks water from the well. ceelka ayay ka cabtaa biyaha. waxaa weeyaan waa xayawaan ama wuxuu noqon karaa maxaan ku raahday shimbir buu noqon karaa ama wuxuu doono noqon karaa. Then aan idhaahdo it drinks water from the well. Okay, let's say it drinks water from the well. aan idhaahdo waxay ka cabtaa ceelka ayay biyaha ka cabtaa. Okay, waxaan kala odhan karaa it does drink. meeshii aan esta ku dari lahaa dhasun baan hore ka raacinaya waxaan odhanayaa it does drink. waxay ka cabtaa water biyaha xagee bay ka cabtaa? From the well. ceelkayday ka cabtaa. su'aal markaan ka dhigayo maxaan leeyahay does it drink water from the well? And that's a question mark. So markaan su'aal ka dhigayo dhastaa ayaan ugu horreysiinaya. So it's very simple. waxaa iigu xigta oo aan doonayaa oo casharkayga soo socda aan kasii proceed garaynaya kasii bilaabaya sida loo sameeyo su'aalaha gaagaaban oo maxaa ka mid ah and for example does it drink water from the well? Yes it does. Simple markaad doonaysa inaad ka jawaab xamsa yes it does. hayo way ka cabtaa. bal hadda eegada yes it does. For example, do you speak English language? Yes, I do. For example, are you a teacher? Yes, I am. marka waxaan doonayaa casharka ku xiga insha Allah, this is just examples, and casharka inoogu xiga waxaan ka hadlaynaa how to make short answers when you are asked simple questions or for example questions, then you answer without answering the question fully. You can answer shortly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.